بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا يجا كحرن برتي ذا يوتيوب سولو هذا عمر دير عبادة صوبر إي عافمات أيان إدين رجينيا ومركلة إي شيكوين كيني أن إدين سو بندقي جري شاكدن waxay kaloo ka dhacday wadanka Finland waa runtii sheeko ka duwan sheekooyinka badanaa ka dhaca qurbaha Soomaalida qurbaha waxaa lagu eedeeyaa dad iska caajisa oo cayrta gurta waa sida ay cadaanka iyo reer galbeedku dhahaan dad u yimid halkaan inay wax kororsadaan oo baahi hayso oo dhib hayso laakiin oday Soomaaliyeed oo aan sheekadiisa goobjoog u ahaa baan caawa idinla wadaagayaa bal sheekadan dhageysta waxaa jiray nin Soomaali ah oo Soomaaliya degan Allah u naxariisto ninkaas hadda waa dhintay wuxuu dhalay caruur wuxuu ka shaqaysan jiray Ciraaq dadkii batroolada qodi jiray buu ahaa nimanka wax diriil gareeyo dhulka wax ka qodo ahaa cagaf iyo mashiinada dhulka qoda iyo waxaas uu ku shaqaysan jiray reerkiisu Soomaaliya u deganaayeen intaan dagaal ku dhicin wuu dhoofaa carabtu tagaa sanadkii mar buu yimaadaa waa noqdaa saas uu ku jiray nin iska ladan oo reerkiisa u shaqaysto ahaa dagaaladii baa dhacay soo carabta ku maqan waa la kala qaxay waa la kala diday reerkii waxay kufaan oo dhacaanba hooyadii iyo shantii caruur ahayd waxay ka soo dhaceen Finland 1990kii bay Finland soo galeen muddo la isweydiisanaa iyo si loo kala dhumay waxa la si dib la isu helay 5 sano kadib buu ninkii odaga ahaa xaaskiisii raadinaysa inta heshay bay waxay tiri meesha kuugu dhow safaarad Finland leedahay tag magacaagu waa yaala fiisahaagu waa diyaar waan ku qoranay waan ku sheeganay dawladdaana diyaar bay u tahay meel walba aad joogto inta tagtid inaad dhahdo ninka saas oo aniga sidii buu yeelay Ethiopia tagay Addis Ababa tagay nin turjubaan u ka haystay safaaradii buu tagay wuxuu yiri magacayga hebel baa la dhahaa reerkayga caruurtaydu magaaladaasi degan yihiin waxaan doonayaa inaan u tago inay nabad qabaan iyo sida yihiin aan ka war doono hold on baa la yiri faylal family berhe u isticmaalaa family reunionka application badan oo la sameeyay oo la approve gareeyay baa magaciisa laga dhaxlay waxa la yiri yes Mr Hebel diyaar baan ku nahay haddii aad haysatid facility ama hub aad isku dabari kartid inta la organize gareynayo ticketkaaga iyo travelkaaga waa okay haddii kale happy baan nahay in anagu meel ku geyno aan from now on mas'uuliyadaada la wareegno waxaan jecelnahay in reerkaaga kula kalansiino aan anagu meel ku dejino oo aan ku diyaarino oo aan ku amba bixino ma wuxuu yiri reerta arrimaha odayaal qaraabadayga la joogo wax dhiba ma qabe bas xagee ka heli karnaa halkaas ticketkaaga iyo travelkaaga diyaar baa u tahay ha laba caafimaad iyo waxbaad maraysaa adigu processkii baa la mariyay xoogaa waqti buu iska qaatay aad buu ula dhacsanaa soo faraxsan baa laga soo qaaday magaaladii Ethiopia uu deganaa baa laga soo qaaday Helsinki baa la keenay diyaarad kale laga saaray Jyväskylä magaalo la yiraahdo baa laga dejiyay oo reerkiisii joogay markuu degay reerkiisii iyo caruurtiisii airport ku jiro arkay wuu tagay asagii baa markii ii sheekeynay wuxuu yiri niyow yaa baalits salaadar maxaa dhahay shiir anigu waxaan garan waayay nin weyn buu marka adigu markaas 60 iyo xoogaa jiray anigu waxaan garan waayay buu yiri nimankan ilaahay baa horta noo soo diray laakiin ninna intaasoo maala iyo intaasoo juhdiya bilaash kuma sayre danta ay naga leeyihiin baan adeer waan u garan laa bal ii waran hadaa dalka deganay adeer waa fiicnaa saasay noo wado tataano noo qaabileeno warman nimanka inta guriga siiyay buu yiri reerkayga dejiyay caafimaad siiyay habeenkaan soo degay buu yiri habeenkaan soo degay waxaan islahaa anigu Finland horta ugu yaraan caruurtii laba muslim ma ah
islaanta lafteedana ma aqaan kolley wax loo sheeg bal waxaad u tagto afkaaga hayso ilaad aragto aeroboorka markaan kasoo degaan ku bilaabay buu yiri aabba salaamu calaykum sayti calaykum assalaam aabbo alxamdulilah ilaahay waa abshir haddaad noo timid I love you aabbo I love you daas un baan inta kala fahminay laakiin caruurtiiba maanta habeenka caawa hadday leeyihin alxamdulilah meel baa qabowday buu kalmaddaasa ay deeday aabba saytiin alxamdulilah aabba marka leeyihin gurigii baan tegay anigu marka waxaan wadaa buu yiri investigation waa maqana gurigii baan tegay buu yiri iska qubaystayo waa soo fariistayo geesaha layga soo galay markaasaa iri maasha allah ii warramo ma fiicantii qur-aanka xaggee la maray caawa ma subcinaa faatixada bal noo akhriya intaanaa cunada cun saa gabar halkaana inta qabsatay buu yiri faatixadii haye soo dhow yaa kaloo suurad kale noo akhri saa nin halkaana inta qabsata qur-aankiiba waa la yaqaanaa xaadiistii waa la yaqaanaa nimankii egsaamay waxaan ogaaday wixii aan aaminsanaa inay huuhaa ahaayeen cidna aysan dhaqankooda ka qaadan cidna aysan diintooda ka qaadan waxaaba la ii sheegaba dugsi inay dhigtaan qur-aanka ay dhigtaan ninka ugu weyne jaamacad dhigto gabdhuhu iskuul dhigtaan lacag la siiyo waa ladan yihiin islaantii baan hoos u ureysano nahadhama waxaada ii sheegin baa jira waraadhe waa iska hadlaysaa adeero fiiri stajiba meesha waxa aad sheegaysaa ma jiraan iyo cid ku gaalaysiinaysa maalinkaasaan go-aansaday buu yiri hadday xaaladdu saas tahay nimanka godob inaan ka galay oo aan ka qaldanaa marka waxaan go-aansaday buu yiri nimanka inaan la kulmo saana nimankee siyo nimanka carruurteyda ii hayay intaasoo sano saana bes hadda xafiiska waa kaase anigu shaqan ku jira kowdhe nicola arvillami gabar la dhaho oo xafiiska haysatay baa iyada la hadal siyaraalow gabadha adeerow nin weyn baan ahay gabadha yartahay oo maaragtay gabadhu waa office managerka meesha haysta jiris bay qabtaa gabar yaroo baryar baa ahayd runtii saana adeer waxaan kuu sheegaa gabadhaan iyadaa haysata waxaad rabta iyadaa kula qaban karta anigu markii la ii yeero oo la dhaho hawshaasaa jirto gal unbaan imaan karaa laakiin anigu inta adigii ku kaxeeyo ninkaan saaha loo sameeyo saa shaqadeedu taas baa anigu turjumaan baan ahay markaad adigu inta ii baahatid aad ninkaas hala ii ballamiyo arrintaasana waa leeyahay markaasaan imaanaya markaasna waxaad sheegta unbaan gudbinaya laakiin anigu kuuma ololayn karo kaambeyn kuuma geli karo sorry waa wixii aan sheegayay waa waddan asagoo dhan si kale u shaqay ma adigaan hadda inta arrintaan ila gala ila waxayn kari saanamay adeer hadda shaqadeydii maaha warbal waa yahay buu yiri niyo waa iska tegayo wiig kadib baa shaqa ii soo dhacday xafiiskaa laga rabaa subaxaas anigu freelancer ah marka magaalo kalan ka imaada waa imid nicola arvillami baa ila kulantay waxay tiri listen ninkii odagaabaa imaanaya ilaahay ha u naxariisto maxamed baa imaanaya soo fariiso I think wuxuu rabaa inuu wax igala hadlo saana waaye magaalada marka xilligaas waxay ahayd xilliyadii aan idiin sheegayay sheekadii hore ninka Soomaaliga gabadha ku dilay magaalo kale inkastoo ka dhacday dadka finishka ay iska yihiin dad maaragtay racism ku iska badan yahay Soomaaliya laiska raha faba raha waxaa lacagta canta cayrtay waana la dacaayadeeyaa joornaalo badan oo lagu kacsan iyo dad badan oo la caayil aflagaaday way jiraan laakiin magaalada waa lagu dhaqay gabadha laakiin Nicola Arvillami xafiiska qaxootiga haysata iyadu waxa laga yaabaa more information iyo racism ka dhabta oo ka jira inay xog ogaal badan u ahayd because shaqadeeda ay ahayd Nicola Arvillami iyo ninkii aan soo horfariisan si wuxuu yiri niyow horta lagu waran waxay ahayd ninkaas runtii intaan turjumayay wax aan turjumo wixii ugu adkaa oo aan ka shaqeeyo ninkaas u ahaa sababtoo ah ninka habka uu hadlayo sida uu rabo inuu sheekadiisa u gudbiyo waa sidii old fashionki raggii hore wuxuu rabaa inta dhulku jajabo inuu dhaho soo waxaad garatay maaha kaale adigu turjum soo waxaad garatay maaha marka waxaan sameynayay ina nutshell cabaar inta dhegaysta wixii soo aruuriyo baan gudbinayay
marka wuxuu hadal iga bilaabay nin yahow Soomaalidu waxay dhahdaa abaal nin galaa badan nin gudaasa yar nin yahow ma waxaan filahayay saanaye shiir ma was mise waxa iga hor yimid oo la kulmay saana midba waan inaan marka asagii ka guraa oo midba u dhahaa saanaye waa inaan u dhahaa tanna anay war iga sugaysaa marka waan u sheegay waxaan ku yiri Nicola Arvelami poetry iyo wuxuu isticmaalayaa suugaan awl markaan qorto noodkayga baan ku siinayaa give me time aan ninka guray say okay I can tell his expression better siduu iska siinayaan garanaya nin hadalada way sheegay inuu yahay shiicniyo ma waxaan filahayay saanaye mise waxa igu hor yimid haye mise waxa hadda aan anigu ila gudboon saana midba si horta anigu ma filayn ilaahay baa runta igu jecel gaala inta caruurtaada qaada dadkoodii oo laayay Soomaalidii kii dad ugu xigoo soo laayay oo gurigii ka cayriyay oo dib ku dhacday oo ay qaxeen oo ay meel u baxsadaan waayeen Soomaali dilaahay ba inta gaal u yimaado oo diyaarad saarto oo guri siiyo oo isbitaal siiyo oo jaamacad siiyo oo caafimaad siiyo oo quraanka baro aniga horta taas waxay yiri mid aan anigu sugahayay waan nimankan ka filahayay ma ahayn midda igu dhacdana waad aragtay hadda waa kuwaas nimankii wax fil qudraan wadad ilaahi yaqaan wadad Soomaaliya dhaqankoodii iyo diintoodii midna lagu xadgudbin ana waxaan islaa ugu yaraan laba Kristiyaanowday islaanta lafteeda la tag waxa bal meesha waxay aad ka gaari karto ka daba qabo kala soo carab waxa aan la kulmay waa wax kale waxa aniga ila gudboon nimankan horta raalli ahaadeen aan dhaho xaal inaan siiyo waxa kale ila gudboon oo aanan oo meesha ay mudan tahay intaas haday iga kaafiyeen oo ay maanta hadii alla idankeeda leeyahay aan anagii oo nabad qabo aabahooda u imid inaan mas'uuliyadooda ugu soo wareejiyaan culays intaas ka badan uma qoora nimankaas saan okay wuxuu yiri ninkani wuxuu yiri horta uu ka mahad celinayaa qaabilaadii sidii loo soo dhaweeyay unbelievable he was expecting maaragtay inay wax kala caruurtiisa ku dhacaan wuxuu islahaa ama maaragtay diiniyan xataa kaljaradan ay ku dhex dhumaan waxaan islahaa ama luqadii ilaawaan waxaan islahaa ama waxaan ku dhacaan laakiin woriga iyo relief baan dareemay wixii oo dhan waa iga degeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Finland waxaan rabaa inaan abaalkooda u geliyo waxaan rabaa apology inaan siiyo raali gelin suspectigi aan ka qabay iyo sawirkii aan ka qabay waan ku qaldanaa inaan sawirkaas ka qaato dad xun ma aha saytiri interesting iyadu marka wax kale ay ogtahay gowan maanta marka wixii laga dambeeyo hadii alla subaxaasa ka anigu waa qaadan waayay waxa la igu yiri islaamtu ii sheegtay lacag baa lagu siiyay oo ay gabadhaani soo dirtay horta lacagtaas bashqad inta la soo baxay saas yiri halkaas saas yiri horta lacagta iga qabo way iga celis saadaya si lacagtaan gabadhaana soo dirtay xafiiska wuxuu u sheegaya waxa la yiri marka qofku markuu Finland marka soo galo asunta money miyaa la wax saasa adigu lacag waxa la siiyaa haday winter tahay oo jaakada winter ku gato haday summer tahay dhar summer ku gato adigu degan waa soo dhaweyn iyo dejin iyo waxa la isugu soo daray adigu bishaas xogaagiisi xayr tahay wixii baa la isugu soo daray lacag fiican baa la siiyay wixii inta ka soo guray wiilkiisa ka haystay bubushqad ku soo riday wuxuu yiri horta ilaahay anigu horta intaan way iga celis waxaan ku iri now I want to inaan mahad celiyo kadibna lacagtaan inaan idin soo celiyaan rabaa horta lacagtaan iga qabta sister excuse me I cannot take cash money lacag anigu ma qaadan karo that's your money what did he mean maxaa ku dhacay wuxuu yiri adeer waxaan ku yiri lacagtaan adaa iska leh iyada ma aha dawladda soo bixisay adigaana lagu talagalay qof dhan oo nool baad qof walbana wuu qaataa si wareegayso toddoba facbay iga xaraasantay inaanan intaas caruurta la yahay
aniguna inta dhex fariisto anigana halkan wax iigu rida waxaad laan oranayn buu yiri waa gunnimo waxaad yeeshaa gabadhan waxaad ku dhahdaa horta lacagtan way iga celis waa haysataa islaamtu awalba iyada waxay soo turtuuri jirtay haddeerna carruurta iyo biilkooda waa haystaa wax walba alxamdulillah waxaad yeeshaa waxaan rabaa iyaga inta la siiyana in la joojiyo hadda dalkii wax loogu celiyo dib maanta ilaahay hadduu aniga inabad keenay oo aan habeenkaas caawa anigu maanta aan reerkii la joogo anaa u shaqaynaya meelaha u galgalahaya in lacagtan hala joojiyo lacagtee si lacagta islaanta iyo carruurta iyo la siiyo anaa biilanaya nin kaladi inta ku jeestaa wuxuu rabaa inuu to take over responsibility inuu qaato inuu la wareego waajibaadkiisii wuxuu dareemayaa inay weakness tahay iyo daciifnimo asna inta reerka dhex fariisto please me too anna give me money inuu dhaho wuxuu yiri waxaasi waa aan Soomaali aniga lafteedu fursad yar baan ka dhex arkay aan culture-kayaga waxyaalaha ragga hore waa ka guban jireen gunimaan u aragnaa waa runtii waa halkaas ka hadlayaa see waxaa jira very interesting haye bas maxaa rabtaa waxaan rabaa buu yiri ilaahay hadduu ku idmaayo nin xoog laana soo waxaad garatay ma waan shaqaysan aqaan saas inta yiri buu 10 waraaqadood oo baco ku jiro laalaaban oo ka soo taxadiray oo soo 10 sano hay qaarkood af carabi ku qoran yahay shaqo subax anigu waxaan ahay buu yiri refinery baan ka shaqayn jiray waxaan cagaf iyo dhul la xoqo iyo dhul la qodo iyo ciid la raro iyo laami la sameeyo waxaasi waa hawlahay aniga ii diru yiri shaqo inta isiisaan reerkayga anaa biilanahay waxaan aad ku fatahaysaan iga joojiyo dalka waa inaan wax u reebaa dad kale oo iga baahi badan baa jira sewi saan waxaan ku eri wuxuu rabaa ninkani inuu xooggiisa ugu shaqeeyo skills buu leeyahay xirfad buu leeyahay waa nin intaas ka soo shaqaynayay laamiyada iyo dhul qodista iyo kan se qalin inta qaatay note samaysatay marka from wajigeeda expressionkeeda gaalada haddaysan sheekada ku socon waa aqaana anigu si ay iska siiyaan waxay dhahaan laakiin on a serious note markay qaadatay I see ay tiri waan gartay inay sheekadu ku socoto marka waxaan rabaa buu horta kow raggii arrintan ka dambeeyay in reerka la ii dejiyo in caafimaad la siiyo in wax la baro raggii horta inaan gacan qaado adeerow inaan gacan qaado oo aan dhaho waa mahadsantiin oo aan abaalkooda maaragtay waa idin gudahaya oo waa idin haya adeer horta intaas la ii sameey u sheeg gabadha markaasaan wuxuu rabaa raggii markaasay tiri Finland inkastoo Europeanku ay maaragtay women equality iyo womenku iyo raggu dee xafiisyada wada joogaan oo mas'uuliyiinta oo ra'iisul wasaare iyo cid walba noqon karaan Finland haddana waxay leeyihiin more attitude more women baaba xilalka haya iyo dowladaha iyo wasaaradaha iyo because of civil war in Russia ay la galeen waxaan leeyahay dagaalkii labaad ee Russia la galeen rag badan baa uga dhintay qaarna TB bay u dhintay qaarna dagaal ay ku dhintay marka ilaa iyo hadda Finland saameyn bay ku leedahay ragga iyo dumarka waxa badan dumarka aad u badan position of power iyo xafiisyada shaqaalaha dawladda iyo marka la dhaho hatta dumarka ku badan marka dumarka aad bay u qabweyn yihiin in la dhaho rag keen raggii hawsha raggii lagu soo celiyo waxoogaa bay indhaha ka taagtay say tiri listen there is no rag meeshaan waxa la dhooban jirto there are mas'uuliyiin arrintaas ka shaqaysay laakiin you have to understand u sheeg inaan isku keeno waxbarasho booliis kii amniga haystay kii caafimaadka haystay wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka waa very difficult my job is intaas oo dhan inaan represent gareeyo adigana ku represent gareeyo ee tell me waxa aad rabtid markaas ilaah bay ka tahay u sheeg adeerow gabadhan waxaad ku dhahdaa adeeray waxa weeye haddii alla ku idmaayo anigu rag baan la xaajoon aqaan soo waxaad yeeshay ma waxaan rabaa raggaas inta arko inaan anigu u mahad celiyo shaqadaasna meel madaxa la ii geliyo mas'uuliyaddan aan reer sidaasaan anigu ku caloolfayoobaan karaa oon habeenka ku seexan karaa laakiin waa cadalaan u hoyanayn biyo lacag dambana inaan ii sutuurin carruurta intaan dhex fariistaan me too please give me ana inaan oranayn biyo
way yaabtay iyadu marka waxay ogeyd critic lagu hayo Somali community-ga critic lagu hayo xafiiskeeda critic loo hayo dad lazy ah oo mashaqaystayaal ah oo cayr iska qaata baad intaas biilaysa taxpayers money waxaasay ka warqabtay waxay rabtay somehow bulshada inay angal kala ka tusto dadku siday u maleeyaan Soomaalidu inaysan ahayn waxay tiri listen and tell him horta thank you very much ina sa u fakaraysi I am really delighted waanu ku dareemayaa unfortunately lacagtan anigu ma qaadi karo so keep it high and we can talk about that lakin please udib it's illegal for me by law hatta kaama qaadi karo meel inaan ku celiyo iska day marka horta hay lacagta laakiin dareenkaaga iyo dignity-ga inside-kaaga waan ku fahmay in this country aad bay u adag tahay inaan isku helo mas'uulka magaaladan caafimaadkeeda iyo booliiskeeda iyo waxbarashadeeda iyo wixii inaan in one table isugu keeno daayarigooda dadkaas qaar baa maayarka magaalada ku jira dad baa bilo la sugaabay tiri very busy laakiin I'm gonna work very hard I promise you I'll do my best and waan isu keenaya laakiin ogow caafimaadka oo kale I have to say our director-ka ee caafimaadka haysta waa gabar so iyadaana gobolkan ka mas'uul ah so markaasaan ku iri waa la hawshu waa laga shaqeynayaa waa la gelayaa laakiin mas'uuliyiinta oo dhan rag ma aha gabar baa ku jirta oo si adeerow waxaad yeeshaa bal gabadhaas noogu kaadiya rag inta noogu keentid bal gabadhan adigu nin kusoo bedelo kola nin baa la shaqeey kola nin baa iyadana kor ka xukumay waa odagu marka waa raggii hore bal adiguna waxaan ku yiri Nicholas bal isku dayo but let's do the man meeting it will be very interesting because it's okay I will see what I can do lakin ma ka balan qaadi karo it might take week it might take 2 weeks it might take 2 months inaan dadkaas isu keeno oo waliba aan isugu keeno agenda aan urgent ahayn waa dad aad u busy bal adigu ninkaas ay rabaan ninkii maalinkii sidii baan ku dirnay ninkala arwano gooniba ila baxdo waxay tiri listen it's a tabloid papers attacking Somali community waad aragtay afreelaad sac lagu hayo negative mashaqaystayaal lazy in fact this guy waxa uu sheegayo if he's very serious we can use him as a maaragtay positive light community oo dhan ku ifiyo oo magaalada oo dhan tusno there are people like this dadku saad u malaysan ma marka let me organize the meeting I am really I want to do yadii baaba arinta aad u dareentay adu 6 weeks bay lagu qaad maalin walba ay weydiin jir markaan weekii marbaan magaalada simaan jiray markuu walaal warbulwar saata nimankii wax wara ayaa waxa hatta nimanka ma waa sugeynaa balankii la bulaya waa iska sugeynaa maalin unba se u jooga tadeero waxa weeyaan waxaan ku joognaa ma naqaan waxaan u dhacaw alaana ma naqaan carruurtii baan ka mid noqon adigu balankii baa la soo tuuro waan xasuustaa subaxii xafiiska markaan nimid waa asna yimid bagaarina la ku ritay ninkala arfalin labadii aan qaatay xafiiska waxaana la geeyay taan hol xafiisku yaal meel qurux badan oo I think director of housing miya xafiiskiisa aad baa maleynaya meel qurux badan oo adigu baana la fariisiyay cafe iyo waxbaana loo keenay waana la sii gudbiyay miis weyn oo ilaa 8 qof oo kala fadhiyaan oo rag u badan iyo hal naag baana loo geeyay waa kuwan baa in raggi sulaa ilaaha sidii raggi waa kuwan baa saa gabadhiiba intaysa oran hello good afternoon let me introduce did habkooda intaysa marin buu horta inta geeskaas ka bilaab midigtaan ka bilaabaya inta yiri uu ninka u warri salaamu calaykum iska warram u sheeg seelaya say hi hello hi idoo hula hello yeah nice to meet you warram gacanta inta saa umari gabadha markii marayo salaamu calaykum buu kursigiisa qaata sama ag fariist
Oh, that was a quite good open. Gabadhii baa tiri marka that's Mohammed. We're very open mind. We're very open man. I'm sure all of you email ka wada aragteen. Horta before I had the opportunity inaan idin baro asagii baa iskiin baray. Mohammed baa la lahaa ninkaan la socda waa turjubaankii ajandada aan idinkugu nimid waxaan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina tight inuu yahay waan ogahay waqti badan inaan haysan waxaan siinayaa faloorka oo ku wareejinaya kelmadda Mohammed asaga ayaa maanta idin casuumay asaga ayaa raba inuu idinla hadlo annaga office of qaxootiga we will want thank you inaad emailada naga soo jawaabteen inaad noo respond garayseen inaad waqtigiina qaaliga I am really appreciate it makes my job iyadii baa maaragtay aduu inta xoogaa isgatay betri over to you adigaa lagu soo wareejiyo saan hay adeer saasaa la yiri hadda adiga ragga adaa lagu fadhiyaa marka mid walba noodkiisu haystaa marka suuxii horta ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad leh laakiin waxaan rabaa inaan horta idiin mahad celiyo mahad aan la soo koobi karin waxa aad abaalka aad ii gasheenna mid aan erey aan iraahda aan ku koobi kara ma aha gabadhaan iyo carruurtaan aad arkaysaan buu yiri iyadoo food leh oo reerahooda la joogta baan inta ka doonay anoon shilin xoogaa inta la isugu kay tartaray saasaan ku guursaday buu yiri soo waxaad garatay maa saana kuwii waa isugayaan wuxuu yiri ilaahay baa adigu saamaha ka watay ilmihii u horreeyay dhashay kadib waa dhoof nimankii u horreeyay Ciraaq galaan ah haye halkaasaan haddii alla ku idmaayo ka shaqayn jiri waxaas oo wadayda ku yaal ta gacmaha saas yiri saas gacmaha markuu u dhaho already iyagii saas ay leeyihiin fiirinaya waxaas gacmahayga ku yaala 24 sano baa dhulku holgsta waxaan ka qodayay olyo iyo ciid iyo dhagax waa kow intaas diyaaraddan sii raacaa sanadkii oo ku dhalaa alxamdulilah waa kuwaas maanta maalinka aan waayey oo dagaalku ka dhacay wadnahan farta ku hayay nimankan waxaa la yidhi xoolahaagu xeraha kugu jiraan ama xeer ha kugu jiraan nimankan xeer hore nagalama dhexayn aqoon la umanay kamana filayn inay intaan ii samaynayaan maanta intaad ii samayseen iyo tuhumkii idinka qabay horta waxaan rabaa bahal yar cimaamadu wateen saas cimaamad inaan madaxa idinka saaro horta raalli ahaa saana sug adeerta cimaamad intaa la gaaray horta intii baan adigu soo koobay gilti buu dareemayaa wuxuu aaminsanaa Finland inay tahay meel maaragtay carruurtiisii uusan asagii la socon ay ku dayacmayaan diintooda dayacmayso luqadooda dayacmayso advantage laga qaadanayo reer dayacan oo waa kow markaasi xoogaa curious noqdeen markaan soo noqday waxa aan arkayna waa wax kale haddana waxaan rabaa by dareenkaas aan qaadayo perceptionka oo qaloocan oo idinka aaminay horta inaan cimaamad idinka saaro gaaladii cimaamad la aaday u kaada adeer he fully apologize this is cimaamadani waxa weeye waa form of apology thank you got saaseen waxba cimaamadan iyo adigu boorkeeda korkaaga halkaa fariisaan ilaayaadan cimaamaddii waa lagaa guddoomiyey intaas waxaa dheer gabadhana waa u sheegay khayr allaha siiyey lacag kaloo horlana waa la ii soo diray horta lacagtaana layga celiyo lacagtii wada saasay I just have to say it quickly first day aan nimid lacagtiidina wuu diiday inuu cuno kow salay waa loo celinaya siyuri ima qabato ragga naagteydii iyo carruurteydii iyo caafimaadkoodii iyo gurigoodii iyo biilkoodii iyo waxbarashadoodii 5 sano iga bixinayay habeenka caawa anna inta imaado anna halkaan igu rido ima qabat xashaalil horta iga qabta baasha Sally, we cannot take it's not my job I can't ma qaadan karno u sheeg adeer horta lacagtaan dhig baa waxaan kaloo rabaa haddii alla ku idmaayo boorsadii inta la soo baxay anagu waxaan ahay buu na shaqaysan kara weligeena waa shaqaysanay
tan iyo maalinkan gabadhaas foodala reerkooda kasoo iyada iyo reerkooda iyo qaraabada wax odhan anaa biili jiro iyo carruurteeda iyo ehelkooda toban baa guriga ku noolay markaan imaadaba marka waxaad yeeshaan aniga meel madaxa la ii geliyo salihaye maxaa obviously anagu this is from security health employment meeshaan ma joogno and in this country haddaa rabtid ways la maraajiyo horta hadalkaan dhamaysta ikaadi dalka idinkaa xukumay waxaad yeeshaan anagu waxaan rabaa shaqo aan bilaabo reerkaygana anaa masruufanayo wixii halkaas ilaahay naga siiyo waa nagu filanta Nicola Arfi Lamy baa soo booda waxay tiri I think I'm not sure about qualification kiisa laakiin in fact inuu passionate yahay in fact well-being kiisa u fiican tahay inuu subaxii ka laho reerkiisa and this is something has to be waa in la xushmeeyaa ninka ku dadaalaya raba war dignitigaygu qaadan maayo ilaa iyo hadda hal jaakad kamuu gada lacagtii waa inaan qiimeynaa waana inaan u isticmaalnaa positive light of refugees inaysan greedy gidigooda ahay okay I see what you mean but we iyaga dhexdoodii baa hadlaya marka laakiin we have to get the office of maaragtay job center meesha la two of oitoimista waa in lasoo helayo iyagu ay shaqo iyo wax meel marka si wax loola habaya okay nin odayaa boodo yiri Mr. aad iyo aad baa u mahadsan tahay I respect you waxa aad nagu tiri iyo waxa aad noo soo jeedisay iyo dareenka aad nin kale la wadaagtay runtii waa wax aad as a man as a father anigu I take my hat of you isaguna cimaamadiiba ku saaraya haadku waa cimaamadooda si waa kow marka unfortunately shaqada waa la kala leeyahay anigu maayarka magaalada aan ahaado laakiin he is a police officer waa ninkii amniga waa wasaaradda caafimaadka waa qoladii guriyeynta what we need aan halkan uga baahannahay maanta waa xafiiska shaqada in this country some system baa jira shaqada ah marka laakiin waxaan samaynaynaa I'm gonna take that responsibility inaan organize gareeyo an urgent meeting lagu sameeyo xafiiska shaqada lagula kulansiiyo is that something you can okay mata intaas yeah few other meeting baan leenahay war adigu nimankii intana boobsiiyeen bay dhaheen Nicola Arfi Lamy waxay ku dhaheen I'll email qolada xafiiska shaqada they will be in touch with you iyaga idin la soo xiriiraya meetingkii maalinka halkaas ku dhamaaday waa kasoo kala tagay adeer waa maxay leeyihiin adeer meeshii xafiiskii meeshii shaqada shaqada ninku soo asagu magaalada ma xukumo ninku soo ninkaad sheegaysa soo ma aha magaalada asaga xukumaa mu inta u diro u dhaho nin baa ku soo socda adeer hadda ceelkii maana abalukaad adigu dhowr kale week baa la joogay email ordaya ku soo dhacay Nicola Arfi Lamy waxaa la yiri Master Hebel soo kaxee halkaas noogu keen maalinkaas waa la ibalmiyey Mr. Hebel baa la balmiyey adagii adeerka Allah naxariistay Maxamed oday fiican buu ahaa waana la balmiyey waana la qaaday Nicola Arfi Lamy waxaa la iska har adugu isla markiiba waxaa loo geliyey koofiyad yellow ah protector ah xiraa la yiri baabuur big up oo xaaji qamsiin camal waana la ku ridi magaaladii baana la ka saaray horta inta waa idin sheeka dhaafay maalinkiiba wuxuu la soo baxay lacagtii markii laga diido wuxuu la soo baxay shahaadooyinkiisa waxa weeyaan uu nin wax tari karana waxba da'deedayeen la arki laakiin intaas muruqi Soomaaliya intaas aan Ciraaq ka shaqeynay intaas aan waxaas qoday intaas okay qoladaas kula xiriirayso evaluate garanaysa Nicola Arfi Lamy waa waraaqihii ka qaaday xafiiskii shaqada u dirtay war waxaan ma fahmaynay dhayn ninku hadduu sheegayo oo refinery iyo dhulqadow iyo waxaas u yaqaano garoonkan geynayna meel magaalada banaankeeda oo construction ka socdo oo ciid la qasayo oo buuro la jabinayo oo tunnel training ba lagu sameeyo baa sidii naloo sii wadayna la geeyay waan xasuustaa baabuur wada Volvo ah Swedish mid saan ah iyo dhulka qoday mid saas wax xurra ah kuwa saan wax sima ah kuwa saan ah kuwa
baa saa u soo wada jeeda nin koofiyad yellow wata aniga hey Mr. Mohammed yeah good to meet you ahead waan maqlay buu yiri inaad tahay nin bala ah waxaan oo dhan ka shaqayn jiray waxaan wax ma ka garanaysaa anigu hoos baan ka leeyahay marka ilaa naabay maanta bala ka dhacda tan adeeray baaraan ma taqaanaa suulaah adigu waxaad yeeshaa ninka waxaad ku dhahdaa farayaasha bahalaha keen saana wuxuu kugu yiri waxaan waan daadiyay let me just and let get on with it sali okay Mr. Mohammed health and safety horta koofiyaddan xiro kabahaas budka xiro bahalkaas soo xiro halkaas gal asagoo dhan baa dhar jaala loo soo geliyay waxa li for safety-gaaga awgeed waxaan ku diyaarinay everyone oo kamid ah waxa hortiisa yaala wuxuu qaban lahaa wax walba oo uu ku shaqeynayay including karki wax walba waa diyaar all you have to do mid gal ka deg next one gal I will keep ticking mid walba isbeen wax shaqada activity-ga loogu talagalay hortiisay taalaay ku qabo saana adeer wuxuu kugu yiri baabuurtaas u jeeda ma jirto adeer waa garanayaa waa garan ninkii adigu odagii maanta sidoo u fiicnaa maalinkaas meeshu markuu yimid waxa u malaysaaba nin xeradiisii la keen walaalaha baalkan nimanku ii sheegmay ma hadda adeer instruction kan ku dhimay war waa aqaan adeer baalahaane iga wareeg san adeer wuxuu kugu yiri mid walba wixii lagu sameyn lahaa hortiisa adeer ana sameynaya 40 sano waan ka shaqeynay adeer iga wareeg dharkii baa ninkii inta loo geliyay yahay disiida hoos baa waxaan ku hayaa ilaa lacaabay saas uu mid u horeysay inta galay horta daaqada qamarku soo siistay oo saaca baan u fiiriyay buu helay starterkii wuxuu gaarigii horta starma hoos baa waxaan galaa alxamdulillah wax yar kadib buu jaq inta geer wax ku siiyay buu bahalkii kut gaaleer meel ka soo baxday maaqa buu halka u rid sugad buu qotay godkii buu qoday 3 mar buu saas u qoday kiisaas ilaa waa garab taagay soo gadaal buu inta u baxay oo gacantii xareystay oo gaarigii reefs galiyay buu baarkinkiisa ku celiyay si inta ka degto mid kale tagay kiibu inta galay oo buu yiri buu godkii u qotay ciid ku shubay kiisaas ilaa soo halka mid kale inta tagay oo yar oo malaasan fuusta camala buu godkii korkiisa inta maray buu meeshii hadana level ka dhigay markaasuu mid kale inta fuulay ciid weyn oo meel taala qaatay buu gaari kale weyn xamuuna meel taala ku guray kiibu weydiinay where's this guy from this guy is a smooth operator bee ninkan he knows what he's doing amazing waa taadinaano aniguna markaasaan booto war waxaas waa aniga lafteeda braa waxaad naga taqaan Soomaali baan nahay war waxaas suuqa bakaaro ku wada jiro Ciraaq baa aaday ma oran war waxaas adigu ninkii maalinkii wuxuu ku dhaafay wixii oo dhan 10 out of 10 buu keenay markuu soo degay waa xasuustay miirahaye muxuu leeyahay kiiba ku yiri come here Mr. Mohammed you inuu soo luqada qabo you perfect xaqu sheegay naadir warisiba ay gacad meeshii baan isku salayn wuxuu listen to me guys me u sheeg my job waa inaan ku marxaati furo inaad safe operator waliba smooth operator inaad tahay this letter waxaan u email garanayaa xafiiska shaqada first job oo soo baxda oo waxaan loo baahan yahay idil be you high priority na waa lagu saaray and you my friend I respect you ايش بقى قارنا لو كسر الدقورقنا لو كسر عليه نيكولا عارف ايميل كسر عمال كنت have you heard the guy is amazed the whole city is saying this guy is amazing قولada construction قدام بقى سود الدرتي وين حسوستا اكتوبر بقى waxay tiri this guy is amazing we've got a story now there are journalists looking for him they want to hear his story I can hold on better. I want to put him in the center of the city. برف بوحدة أكتوبر وحسوستا محمد والله يري حالي شقدي واد بلوضي
xafiiska shaqada la geeyey halkaasaad ka shaqaynaysaa mushaarkaagu waa intaa waa ka centerka magaalada weeye wixii loo baahdo lifti cagaf mid xaaqda mid ciid ku daadisa mid cusbo ku daadisaa jirta laamiga howlahaaga waali ilaaha ilaaha maxaad sheegaysaa tarmuus buu wadan jiray marka tareenka markaan soo galo magaalada centerkan ku arki jiray tarmuuskiisa wuu wataa hayd iyo shah inta kusoo karsado lacag baa loo bilaabay barafkii u horreeyey markuu yimid cagaftiisa asagoo wata waa xasuustaa cimaamadii guduudneed baa madaxa ugu xiran baa joornaalada dhash ilaa hadda haddaad google garaysid yuba school maxamed google-ka waad ka helaysaa storynka qorayeen waxay ahayd the unique Somali nin Soomaaliya oo cajiib ah the most hard working man wuxuu samayn jiray fajarku tukan jiray waxyaalaha ay ugu bixiyeen the most hard worker in the man ninkaas salaada subax markuu tukado Finlandna salaada subax 4 o'clock in the morning baa la tukadaa winterka mararka qaarkood mar baaba 3 la tukadaa 4 markuu tukado tarmuuskiisu inta cabaystuu soo bixi jiray markaasuu xerada tegi jiray markaasuu cagaftiisa soo qaadan jiray magaalada saa dhexistaa cirka walaal saaka xoogaa baraf saasina ma diin markaasuu haddana ciid meelaha ku daadaadi waxaa la arkayaa ninkan shaqadana 7-8 baa la galaa ninkaana 5 o'clock shaqaynaya qoladii loo geeyaa la yaabtay characterkiisa ka helay af ma yaqaan wareer rag muxuu sheegay warbal warab ay maxamed can we have some of your tea waradeer anu shaan idin madaqsin kara kaale magacyo la baxay war Umar Fairway kaale raggii isfahmeen wuxuu noqday jiir nin kaftan badan adeegiisa yar buu iska wataa Soomaaliya u nool yahay he was so positive articles kana waxay ku qorayeen yani ninka cimaamadii guduudneed wata oo cagafka oo center waxa la yiri he is from Somalia I remember article ka first he is from Somalia wadankan wuxuu u yimid qaxootinimo wuxuu diiday inuu cayr qaato wuxuu diiday in handouts la siiyo wuxuu ka go'aansaday inuu safe gareeyo magaaladan inuu hubiyo qof magaaladan ku dhashay inuusan baraf ku kufin shaqadiisu waxay bilaabmataa 7-8 o'clock in the morning laakiin wuxuu decide gareystay si aan qof ugu dhicin ama gaari shil ugu gelin 4 o'clock in the morning inuu shaqada soo galo maxamed wuxuu noqonayaa ninkii ugu war article waxaana la ka qoray anagoo dhan Soomaalida waa la jeclaaday marka ninkaas waa dhintay Allah u naxariisto wuxuu ahaa runtii nin inspiring ah oo dhiirigeliya mushaarka markii loo qoray xataa sheeko kala ka timid oo waxa la yiri look Nicola Arvilo ballan u sameysay waxay tiri look you have a salary your salary gaagu gurigaaga health care kooda education kooda wax walba caafimaad ma bixin karo marka what we gonna do waxaan ku siinaynaa income kaaga inta la tiriyo baa waxa lagu kabaya waxa ka ma ushaada naga badan waxa yagaan dhaqaale alxamdulillah yaa laga helaa anaga iska bixinayn lagu kari waa oo ilaa xaajiyadii soo gashay tirnaa ninka warkiisa iga daa adagaani xogaagii ayuu ta ku jiray iisoo hobashii sheeko kala ka dhacday laakiin the moral lesson ku wuxuu ahaa ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa nin qab weyn oo Soomaaliyeed oo runtii ka matalayay raggii hore siday u nool jireen sida rag ula xeeri jireen iyo waxa ay macnaha dareemadooda iyo shucuubtooda sida ay ahayd iyo abaalka sida ay u gudu jireen iyo xeerka sida ay u yaqaaneen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto maanta sheekadiina halkaas ayaan ku soo koobaya fadlan kanalka noo balaariya insha Allah aad baan idin salaamaya meel walba joogtaan feedbackiina taladiina iyo ra'yadiina aad baan u soo dhawaanaya soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh